markii uu arkay dad tiro badan oo halkan isugu yimid iyadoo weliba ay sare u istaagnaayeen si ay u soo dhaweeyaan waxaana dhanka kale fanaaniinta iyana ku soo dhaweeyeen heeso wadani ah iyo weliba kuwo qiiro leh waxa odayaasha iyo waxgaradkii halkaasi ka hadleen madaxweynaha uga warbixiyeen xaaladda ay ku sugan yihiin maadaama ay qurba joog yihiin jaaliyadda Soomaaliland ee waddankeena gacmo furan bay kugu soo dhaweynaysaa adiga iyo marwadaadaba markaan dib ugu noqono taariikhda waxay noqonaysaa 2000 markay Soomaalidu isugu timid Djibouti tuulada la oran jiray ama degmada Carto dabcan madaxweyne caalin isaguba qurba joogta Soomaalida ayuu horay uga mid ahaa isagoo laakiin markii dambe halkan ka aaday Galmudug waddankan Ingiriiska waa waddankii aan ka tagay ee aan ka aaday Galmudug haddana isagii ayaan ku soo laabtay sharaf bayna ii tahay caawa inaan dadkayga dhex joogo oo aan la damaashaadayo ujeeddada loo aasaasay galmudug waxaa loo aasaasay inuu u adeegto bulshada ku nool gobollada dhexe iyadoo u taagan in ay buuxiso kaalinta adeeg oo ay bannaysay dawladdii dhexe ee burburtay ugu dambeynna waxaa madaxweynaha shahaado sharaf guddoonsiiyey guddigii hawshan soo qabanqaabiyeen isagoo weliba uu horkacayay guddoomiyaha jaaliyadda Galmudug Maxamed Ciise iyo dad kale oo abaalmarintaasi mutaysteen mudane madaxweyne maadaama munaasabadan dad aad u fara badan isugu yimaadeen dareenkaaga siduu yahay baa runtii aad ugu farxay waana mahad celinayaa ummadii ka soo qayb gashay dabcan kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug mudane Maxamed Axmed Caalin oo isagoo caawa si weyn halkan loogu soo dhaweeyay iyadoo munaasabadan halkan lagu qabtay sidaad aragteen dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen dabcan waana markii ugu horeysay munaasabad noocan oo kale ay u sameeyaan jaaliyadda reer Galmudug isagoo si aadahana uga faraxsan sida heerka sare ay u soo dhaweeyeen waxaana